isbitaalka guud ee Hargeysa inuu 300 mitir wax ka yar inuu u jiro madaxtooyada waa nasiib darro weyn dhakhtarkan weyn ee Hargeysa 1953 baa la sameeyay ama 1953 baa la sameeyay Hargeysa markaa 40,000 qof kamay badnayn ama 30,000 qof baa loogu tala galay in wax loogu qabto Hargeysa maanta 1 milyan maraysa in maanta isbitaalka Hargeysa uu sidiisii ahaado ama aan wax ma garanayso oxygen la'aan loogu dhimanayo waa nasiib darray qarankan ku tahay ummadda maalin walba cashuurta lagu kordhiyo maalin walba cashuurta lagu kordhiyo in cashuurtoodii loogu iibin kari waayo oxygen waa nasiib darro weyn aad iyo aad baan uga xunnahay shacbiga Soomaaliland baan la murugeysanahay la tiiraansiyeysanahay waxaan leeyahay Ilaahay hoggaan caafimaad qaba hayna siiyo hoggaan ummadda la dareena ama shacbiga Soomaaliland la dareena Ilaahay hayna siiyo waxaan xusayaa oxygen taayari lacagteedu gawaadhida wasiiradu wataan 2-3 baabuur marka lacagtoodu la isu geeyo ayaa ka badan gawaadhiday wataan ee gawaadhida raaxada ah ama fiirka loo yaqaano 3 baabuur ayaa ku filan lacagtooda waxa kale oo iyadaan xusayaa isbitaalkeena iyo caynkaasa in madaxtooyadeena maanta dhisanayso madaxtooyo waxay tilmaamaysaa inuu inaga maqan yahay damiirkii iyo dareenkii bulshanimo inuu inaga maqan yahay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa dadka hoggaanka inoo haya inaanay ahayn dadkii ka turjubayay bulshada Soomaaliland ahayn bay tilmaamaysaa